salaadiin cuqaal waxgarad iyo qaar ka mid ah gudida beelaha Garxaajiso kulan warbaahineed ku qabtay gudaha magaalada Burco ayaa si adag uga hadlay hadal uu jeediyay maalinimadii shalay taliyaha guud ee ciidanka qaranka Soomaaliland Nuux Ismaaciil Taani oo uu sheegay in Korneyl Caare yahay dambiile qaran sidoo kale cuqaashana ayaa taageeray go'aanka ay kaga baxeen cuqaashi shalay ka hadlay magaalada Ceergaabe ee ka waday waanwaanta xukuumadda iyo jabhadda Korneyl Caare u dhaxaysay anka kale cuqaashana ayaa tilmaamay inay xukuumadda Soomaaliland ay kala fogeynayso beelaha walaalaha ah ee wada deegaanka Ceelaf Weyn mana ahayn runtii wax qof mas'uul ah oo madax sheeganayo jamhuuriyaddan ciidankeeda ay hoos yimaadaan wuxuu ku hadlamahay waad arkaysay inaanu wax rasmi oo ku talagalkiisa ahayn cid u soo dhiib haday doonto isaga ba ka dhashay cid buu la hadlayay baa maanta halkan ka hadlaysa ay hadashay bari hadli doonta iska tagay way iska tagayaan waxa halkaan daan leeyahay waa uu leeyahay waa iska taga waa Garxaajis iyo Samaroon waa dadkii wadankan lahaa waa dadkii u dhashay waa dadkii maxay tooy lahaade cid soo cabanaysa waa idinkee wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa ka yeeshaan baa leedin wixii ka soo baxay shalayto nuux ka soo baxay iyo madaxweynihiisu ay isla ogaayeen ee loo soo dhiibay wasiir ninkan ciidanka qaranka haysta ama waxaan la yiraahdo ciidanka Soomaaliland haysta ayuun ba halkan ayaanu isugu nimi waxaanu daba socdaa ficilkii wixii shalayta ka soo baxay madaxdii joogtay ayaa odayaashii joogay meesha la yiraahdo Ceergaabo agoonkii way isnaqanaa balaawa naga asaydali guriga kama ilaadaan anigu waxaan leeyahay muuse waxaan u sheegayaa fariin baan u dirayaa maanta waxba dhulka yaay ka oolin maanta maalilaad ka xoog weyn tahay oo ka ciidan badan tahay oo ka hub badan tahay wallahi inaad weligaa helin wixii hore ka qabiya ahaana waa adogay horena waa isu aragnay maantana waxa weeyaan waa maalintii aad ugu xoog roonayd waxba yeey ka dhul oolin cidna waxba ma ahinin cidaad dili karta dil cidaad ku tuman karto ku tumo wada caaraanu nahay ballan waxaan kugu qaadayaa ballan muuse maanta maalinteeda ilaahay sukaan keenay inaga oo fooda istaray hadalkii ka soo baxay taliyaha ciidanka Nuux Taani oo fariin Muuse Biixi soo faray ahayd Nuux Taani iskama hadlin cidda uu ka haystaa waa madaxweynaha iyo inakaay wasiirkiisa daaqliga annagu waxaanu nahay odayaashii Garxaajis ama salaadiintii ama gudiyadii u tagay jabhadda Caare ee ugu tagay tabca jabhadda iyo hogaamiyaheedu wixii aanu ula tagnay oo nabadgelyo ah oo dana oo dal ilaalisa midna nagu mid nabadgelyo aanu ka keenay wada hadal baanu ka keenay xasanooli baanu ka keenay wayna aqbaleen waxa laalay oo diiday waa Muuse Biixi iyo inta ku xidhan annaga samirnay annaga dul qaadanay wixii aynu kala qaadanaaba inuu leenahay Caarena kalibu ahaa maanta kalimaha ninkii uu tagay halku joogo ninka yiri 25 sanadood baan baad bixinayay oo ciidan aan dalka wax alla waxay u tarayaan jirin baan lacag siinay waa dambiilaha koowaad waa haday cadaato koow ninka yiri Caaro 4 nin dilay oo gacan ku dhiigle abaan intaan dallacsiiyay abaanduulo ka dhigayna de isagaaba qirto waa dambi kale ninka yiri ciidamadii Soomaaliland wixii kuwii tagay mooyo kuwa kale una ka daba taga oo idinkuna laydin ma baahna iska tagana waxay la tahay inaan halka hadii inuu dambi jiro kuwa shalay aatiri iska tagaano anagu wax wadaagnaayo aanu raacayna kama maarano ursangeli iyo dhulbaante iyo biirsi iyo dadka dalka inala anagu kama maarano iyagaanu la soconna haday adiga isaaq laantu kugu filan tahay iyagaanu la soconnaa raacayna Soomaaliland bay xuquuq ku leeyihiin oo ay u soo dhinteen oo ay u soo dhaqmeen oo ay xuquuqdoodii ku doonayaan hadaa tiri maanta ilaydin ma baahnay laaluush baan awal baydu ku haynay iska taga anagu iyagaanu la soconnaa wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh Cabdi Qani Baafo warbaahinta STN Burco